gudoomiyaha gobolka Oodweyne iyo qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee hay'adda wadaniga ee Hafayoko ayaa shir jaraa'id ay si wada jir ah uga qabteen Hotel Ramad ee magaalada Burco kaga warbixiyay xaaladihii abaaraha uu soo maray gobolka Oodweyne iyo sidii kaalmada hagar la'aanta loogu fidiyay dadka abaaraysan ee ku dhaqan gobolkaasi. Ugu horreyn gudoomiyaha gobolka Oodweyne Maxamed Gahay Xirsi ayaa sheegay in gobolka Oodweyne uu ka mid yahay gobolada ugu baaxadda weyn Somaliland sidaasi daraadeedna ay saameyn ballaaran ku yeesheen abaarihii guud ahaanba saameeyay gobolada Somaliland intooda badan. waxaanu gudoomiyuhu sheegay inay mahad ballaaran u soo jeedinayaan hay'adda wadaniga ee Hafayoko iyadoo xil weyn iska saartay sidii ay u kaalmeyn lahayd dadka abaaraysan, isagoo sidoo kale xusay gudoomiyuhu inay jiraan hay'ado kale oo kaalmooyin soo gaarsiiyay gobolka Oodweyne, balse waxa uu xusay in hay'adda Hafayoko ay noqotay hay'adda kaliya ee sida dhabta ah u gargaartay dadka abaaraysan ee ku dhaqan xilfiyada kala duwan ee gobolka Oodweyne. gudoomiyuhu mar uu ka hadlayay abaaraha ballaaran ee soo noqnoqonaya waxa ugu baaqay xukuumadda iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah inay ka shaqeeyaan sidii looga faa'iideysan lahaa biyaha roobka ee xilligani si loogu baahi baxo xilliyada abaaraha oo si wanaagsan oo xilkasnimo leh loo soo gaarsiiyay biyihii si wanaagsanna u maamulay. run ahaantii biyahaasi oo ahaa biyo waxtar leh oo aag badan waxa weeye hay'ado badan baa jira oo ah qaar local iyo qaar international ba. run ahaantii annaga haddaan nahay gobolka Oodweyne waxa aad iyo aad alxamdulillah aan ugu mahadnaqaynaa hay'adda UNICEF iyo hay'adda Hafayoko oo biyo badan oo alxamdulillah waxtar aad iyo aad loo geystay na soo gaarsiiyay runtii si wanaagsan oo xilkasnimo leh ay u maamushay hay'adda Hafayoko. alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale. runtii dhul badan ayay wax ka tareen ilaa waxa waraabiyay 8 tuulo inkastoo markii 18 tuulo inkastoo markii hore hay'adda UNICEF ugu talagashay 9 tuulo kaliya, laakiin markaanu isla garanay annaga iyo maamulka Hafayoko aanu isla eegnay waxaanu isla garanay inaanay 9 kaas oo kaliya tuulana dhaafayn tuulana la waraabin halka uu ka imanayo feershan. sidaa asligeed waxaanu isla qaadanay inaanu 9 kale ku kordhino oo aanu waraabino. geesta kale Maxamuud Axmed Oday oo ah sarkaalka u sareeya hay'adda wadaniga ee Hafayoko gobolada bariga Somaliland ayaa isaguna ka warbixiyay doorka ay hay'adahan ka qaateen hawlihii gurmadka abaaraha ee gobolada bariga Somaliland. waxaanu Maxamuud Oday si adag uga hadlay dhibaatooyinka jiray xilliga abaaraha ay ugu weyneed in nidaamka foojarku ahaa mid ay hay'ado badan ku dhaqmayeen oo laga dhaxlay dhibaatooyin badan ay ugu weynaayeen in guud ahaanba xilligaasi ay qabeen xoolihii ku dhaqanaa deegaamada abaaraysan. system ka voucher-ku waa in system ugu talagalay xoolaha nool in biyo la siiyo. ku talagalka dambe aynu ku talagalno hay'adaha iyo haddii la idmaayo kolley inta afka Soomaaliga ku hadashay hay'adaha u shaqeeya fariimaha halkan uga diraya waliba nimanka madaxda ah ee hay'adaha xagga sare madaxda waa system ka voucher-ku xoolihii uu qadiyay isla mar ahaanta dadkeena xooluhu ku nool أنا حولها بيهلين أنا حولو بيهلين محوها حبا كدمان المشروع على جودي لجفري جول كالصول يسرار أيه بيه بدناين تدكو يجا إسكابر شيء بيهنا حولها سيستان. ugu dambeyntii shirkan ay jaraa'id ay sida wada jirka u qabteen maamulka gobolka Oodweyne iyo hay'adda wadaniga ee Hafayoko ayaa ku soo beegmaya xilli ay ka curteen inta badan deegaamada gobolka Oodweyne roobabkii guga kuwaas oo si weyn u maashiyay. waxaana guddiga shirkoodan ay jaraa'id ahaa sidii looga faa'iideysan lahaa biyaha roobka iyo waliba baaqiyo ku wajahan xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga oo la xiriira kaalmeynta dadka ku dhaqan gobolka Oodweyne. Maxamed Caawad Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel. Burco.